kulankan oo looga hadlayay abaaraha iyo xasuuq ay ciidamo ka amar qaata Axmed Madoobe ay ka geysteen deegaanada Buulagaduud, Wirkooy iyo Barsanguuni ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo ay ka soo qayb galeen nabadoono waxgarad dhalinyaro ayaa waxa soo qaban qaabiyay musharax madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Xasan Caamir Xuseen, waxaana kulanka diiradda lagu saaray ciidamada ka amar qaata Axmed Madoobe ee dhulboobka ka wada deegaanada Barsanguuni, Wirkooy iyo Buulagaduud oo ka wada tirsan gobolka Jubbada Hoose. ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay musharax madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Xasan Caamir Xuseen, wuxuuna si kulul ugu hadlay xasuuqa iyo abaaraha ka jira deegaanada Barsanguuni, Wirkooy iyo Buulagaduud, wuxuuna sheegay in mar walba loo baahan yahay laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida. ay macnaha hooga laha oo wadamada dhammaray in dhibaato badan gaarsiiyay waa maqasheen oo maleynaya. waxaan dhihi lahaa jubbooyinka gaar ahaan macnaha Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe igado intoodaba abaarta waa saameysay. ma aha macnaha qayb kaliya abaartaas macnaha dadka xoolo dhaqatada kaligood ma aha, beeraleyda hataa dhibaato badan gaartay. raboodkooda anaga hayna hay'adaha samafalka waxaan leenahay iyo beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa in ummadaas loo gurmado dadka beeraleyda ah xoolo dhaqatada intoodaba in loo gurmado si wax loo qaban lahaa. xoolihii waa dhamaadeen, beeraleyda waa dhamaadeen. marka taas ayaa ajandii ku saabsanaa. ilaahayna waxaan ku tuugaynaa in ummadaasayto dhibaatada hadda ay sheegteen abaaraha in ilaahay dheef ugu bedelo. midda kale raba inaan ka hadlo waxaa waaye oo shirkan ku saabsanaa runtii muddo badan ayaan dowladda federaalkii iyo dowlad goboleedkii macnaha Jubbaland iyo beesha caalamka waxaan u sheegnay dhulkan dhul beereedka ah laga soo bilaabo Goobweyn ilaa iyo inta u dhaxayso Doolow dadka loo yaqaano beeraleyda waa la yaqaanaa. dhulkaas dhul alaamaysan waaye, nin kasto suuxdin buu leeyahay, nin kasto abba ugu soo tagay macnaha waxa waaye macnaha dhulkaas dhul yaqaano waa dhul la boobi kara ma aha, dokumentooyin waaye. markaan dokumentooyin leeyahay waxa waaye nin kasto dhulka waxa waaye awowgii dhalay ayaa ku duugan, wax la inkiri karo ama wax la dhici kara ma aha. dhibaato naga soo raacday macnaha ayaamahan marka la yiri macnaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wax safeynaysa markii la yiri ciidamada daraad bilaabeen dhul safeynta bilaabeen. ciidamada tuulo kasta ay tagaan waxay isku dayeen inay dhul ootaan oo ay dhahaan beerahan annaga iska leh. waa soo kormeernay, waa tagnay, haddaan siyaasiyiin nahay waa soo haddaan odayaal nahay waa soo kormeernay, haddaan aqoon-yahano nahay waa soo kormeernay. Goobweyn marka la soo gaaray waxa lagu sameeyay waa ognahay, Yoontoy marka la soo gaaray waxa lagu sameeyay waa ognahay, Buulagaduud marka la imaaday waxa lagu sameeyay ognahay, Wirkooy marka la imaaday waxa lagu sameeyay ayaan ognahay. waxaan noogu sii darnaa meesha la yiraahdo Singaleer oo hadda naftirkeeda dhibaato badan oo shalay lagu sameeyay. marka taasaan rabaa inaan faahfaahin dheeraad ka bixiyo. run ahaantii weli dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa anagu waxaan nahay dad beeraley ah. runtii dadka jubbooyinka ku nool ama xoolo dhaqata ha ahaadaan ama beeraley ha ahaadaan, dadka jubbooyinka run ahaantii waxa waaye dad masaakiin ahoo aanan macnaha dagaalo iyo fitno aan shaqa ku lahayn. hadduu helo dhaqato uu yahay iyo haddii beeraley uu yahay, dad oo macnaha oo fitno abaabula ama dad fitno ku lug leh runtii ma aha. waxaa nagu soo duulay ciidamada Jubbaland dad aan ciidamada Jubbaland ka tirsan oo hataa Soomaali aan ahayn oo macnaha dowladaha dariska nooga imaadeen ayaa waxay nagu wadaan dil iyo boob iyo dhibaatooyin dhul boob ah. darad waxaan aad ugu sheeganaynay beeraheena in loo samaysan yahay shahaadooyin aan jirin oo fake ah in loo samaysan yahay. ilaa hadda shahaadooyinkaas waa la sameeyay waa jiraan, annagana dabagalan ku wadnaa. runtii qof alaalo qofkii nidaamkaas noolo imaado beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada waxaan leenahay dadka noocaas oo shahaadooyinka beenta ah samaysan hana laga qabto. ciidamada nagu soo duulay oo hadda raba inay dhulkeena boobaana ciidamada dad Soomaaliya u dhashay dhab ma aha, waa kuwa kalinka shanaad ka yimaaday iyo kuwa Kenya ka soo NFD ku soo gudbeen ay rabaan dhul beeradkeena inay dhacaan waay. shalay maxaa dhacay marka oo shirka aan ku fadhino dad beeraley ah beertooda ku jiraan falanayaan dhalinyaro ah in beertii macnaha nin tuutaysano oo dowlad goboleedka Jubbaland ka mid ah inuu ciidamo soo wato iyagoo beerahooda ku jiraan in dadkii soo gumaado xitaa oo macnaha oo markaas macnaha qalab oo markaas macnaha oo miino ku jirto in madaxa loo saaro ka dambe remote-ka loo qabto in meeshaas lagu baabi'iyo. si dhulkaas loo kaco loo dhaho ma dhulkan miina ku jiraan dhulkan macnaha argagixisa ku nool in la dhaho dadkii lagu sheego inay argagixisan yihiin lagu sheego oo si been ah dadkii loo beegsado macnaha miino oo markaas macnaha oo remote loo qabana in loo qabto lagu baabi'iyo. dowladda federaalkana waxa odayaal badan ka hadlay
siyaasiyiin badana ka hadlay oo ka tirsan dadka beeraleyda ka tirsan anoo hadda musharax ah macnaha oo sugaayo man one vote kana waxaan ka hadlayaa runtii dhibaato badan ayaa naloo goostay dadka beeraleyda darad loo geystay iyo muddo kasii horeysay loo geystay iyadoo dokumentooyin falsa loo samaysanayay ayaa haddana waxaa dhacday in weelal oo marka oo miino ku jiraan in laga soo qaado gudaha Kismaayo oo la keeno beerihii la keeno madax loo saaro rumud loo qabto ummadii ay ka dhamaato runtii waxa waaye macnaha inta dhimatay oo nidaamkaas ku geeriyootayna dadkoodii oo ehelkoodii oo dhan waxaan leeyahay samir iimaan Allah siiyo iyo inta kale Soomaaliyeed oo jubbooyinka ku nool waxaan leeyahay dadkaas meesha ku dhamaaday oo nidaamkaas loo dilay oo gacan ka gardaran dishay runtii waxaan leeyahay macnaha intaayna oo dhan samir iimaan Allah nagu siiyo ma u dul qaadanayno nidaamka noocaas ah dhulkeena boob baa ka socda wax badan caalamkii iyo dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed aan u sheegnay jubbooyinka waxa ka socda waa gardaro ciidamada nidaamkaas sameynaya ciidamo Soomaaliyeed Soomaali u dhashay ma aha waa dawladaha oo dariska kuwa lagu soo aruuriyay waa dhinaca kale waxa uu musharaxa ka hadlay dhulbaabka lagu hayo beeraleyda ku nool deegaanada jubbooyinka waxa uu nabaaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland runtii waxaan rabnaa arimahaas in wax badan laga qabto shirarkeena wuxuu ku saabsanaa dib u heshiisiinta aan hore u soo sheegay dib u heshiisiintana waa wadnaa wali nooma dhamaanin waxaan u gudbaynaa dadka macnaha hoola dhaqatada haddana waxaan isku keenaynaa waxaan u dhaqmaynaa asalkeena hore qaabka jubbooyinka marka hore aheed oo kale macnaha ayaan rabnaa marka inaan u isticmaalno barnaamijkeena reer jilib waaye reer afmadow waaye reer badhaadha waaye reer kulbiyo waaye reer luuq waaye macnaha reer jamaama waaye qaabkaas inaan qabiil ahaan isu abtirsano ka dambe marka wax la kala qaybsanayo laf aan u wada qaadano nin la inkiri karo ma jirto dad badanaa jiro oo walaalaheena ah la isku dayo hadda macnaha in hataa Soomaalinimadooda la inkiro dad badanaa jiro oo Soomaali ah oo Jubbaland ka tirsan oo la rabo macnaha in hataa deegaanka ay lahaayeen dad kale inuu sheegto lagu kaalmeeyo ayaa jiro waxaasna uma dul qaadanaa jiro badanaa wadnaa marka barnaamijkan intuu ku saabsanaa ma dawladda federaalka marka waxaan u sheegayaa haddii ay daacad tahay waxa la yiri macnaha maamulka Soomaaliyeed federal waaya liiri federalna qaabkeeda qaabka oo jubbooyinka loo sameeyay ma aha waana naqaana dawladda dariska naftirkooda federal ahaan u dhisan beesha caalamka federal ahaan u dhisan maamulka jubbooyinka federal ahaan ma aha nidaam jabhad nagu soo duushay way hadii ay wax sameynayso federaalka dawladda federaalka ay wax sameynayaan ha nagu kaalmeyso maamul deegaanka madax ka si ay u badbaadaan dadka hoola dhaqatada si ay u badbaadaan dadka beeraleyda maamul anaga aan madax ku nahay ha nagu sabood gareyso maamulka dhulkayna u baahannahay inta aan u sheegay waxa waaye fikradaha hadda aan rabno dawladda nagu kaalmeyso dhibaatada hadda ka jirto jubbooyinka sida aan u sheegnay waaye dad aan wadanka u dhalanin oo ciidamo laga soo dhigay rabaan inayna baabi'iyaan siiba dadka beeraleyda inay baabi'iyaan loo sameeyay waaye federaalka waxaan ka rabnaa inayna kaalmeyso si aan dhulkeena madax ugu noqono